marka waxaan ku weydiinayaa maxaa maxkamad dibadda u geyn weyday maxaa maxkamad Soomaaliya dhexdeeda u geyn weyday international court aniga waxaan aaminsanahay wixii Ilaahay ii qoray inaan helayo aadan madoobe waxba igama haysan karo haddii Allah ii qoray waan helayaa anoo halkayga fadhiya imanaysa marka oo horeysa waa iimaanka aan ku qabo haddaan waayana waa alxamdulillah haddaan helana waa alxamdulillah midna u dhiman maayo midna u gaajoon maayo marka inaan u galo intaas anigoo diiday inaan ku fadeexadayo Soomaali aawadeed aan Yurub ka helay oo ka qaadan lahaa isagana fadeexadayn lahaa laga yaabi lahaaba in marka laga joojin lahaa inuu dibadda u baxo meel kale ma aadayo intaas ay igu filay hadda waxaan u sameeyay oo hadlayaa waxa weeye dhalinyarada iyo masaakiinta dadka aan hadlaynin oo la cadibay oo sida iyo si ka daran loo galay in baan rabaa in ay iyaguna iska hadlaan haddii aanay xitaa waxelayn inay bulshada u sheegaan waayo waxa soo baxaysa bulsho dhan oo dulman marka madaxweynaha dame oo yimaada hadduu kan yahay iyo hadduu mid kale yahayba aynu badano oo pressure saaro dee bulshaynu noqonayna ama dabad joogno ama gudaha joogno ummadda la dulmayo haddaynu badano waxba waaba laynaga baqaya waxba laynoo qaban karaa waayo codku waxbuu taraa marka la isu geeyo intaasaan u samaynayaa aniga inaan dadka dhiiri geliyo waayo waxa dulmani waa badan yihiin kaligay maaha waa la badan yahay dad aan haysanba wax kale baa la dulmay anaga waaba ka noolahay oo uma dhimanayno qadana uma waayeen laakiin dad aan waxba haysan baa la dulmay oo laga qaaday xoogaagood oo laga yaabaa inay bagaajo u dhinteen